بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل joogtaan boolaalyaal salaanta islaamkan idinku salaamayna macnaheeduna ay tahay nabadgelyada ilaahay iyo naxariista ilaahay iyo barakooyinka timi xagga ilaahay korkeena ha ahaato walaaladayda muslimiinta ah waxaan ugu talagalay muuqaalkan maanta in aan idin baraarujiyo dhibaatada faqrigu uu leeyahay iyo inaad ilaahay ka magan gashaan qof walowba faqriga iyo baahida iyo bariga aadamaha walaalayaal faqriga waxaan u jeedaa maaha faqriga cilmiga faqrigu uu noocyo badan yahay laakiin faqriga dhaqaalaha ama lacagta iyo hantida baan ka waramaya inuu qofku dan yar u noqdo ama lacag la'aan ay ku soo food saarto oo dabadeedna fitnadaasi ay ku kalifto waxyaalo waaweyn oo aan tilmaami doono insha Allah rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ilaahi wuu ka magan gali jiray faqriga waxa ducooyinkiisii kamid ahaa Allahumma inni a'uudu bika min al-kufri wal-faqri wa a'uudu bika min 'adhab al-qabr waxa kaloo kamid ahaa ducadiisii Allahumma inni a'uudu bika min al-faqri wal-qillati wal-dhillati wa aw an adlima aw udlama waxa kale ducadiisa kamid ahaa Allahumma inni a'uudu bika min al-kufri wal-faqri wa a'uudu bika min 'adhab al-qabr la ilaha illa ant ducooyinkaas oo dhan waxay tilmaamayaan in nabigu ilaahay ka magan gali jiray oo ka hoos gali jiray faqriga ilaahu faqri ban ka magan gal ilaahu kufriga gaalniman ka magan gal ilaahu cadaabka naareed iyo cadaabka qabrigan ka magan galay ilaahu wax yar la'aanta in wixii aad haysatay hantidii kugu yaraato iyo dulinimadan ilaahu ka magan galay arrimaha noocaas qofku markuu faqiirka uu noqdo waa fitno waa ibtilaa waa imtixaan aad u weyn waxay ku kalifaysaa dadka qaar inay gaaloobaan oo diinta ay ka baxaan dadka qaar waxay ku kalifaysaa in ay dambiye waaweyn oo kabaa'ira ay ku kacaan ama inay dadku u aabayeeliba waayaan maxaa xalaala maxaa si xaaraana subhanallah waxaan halkan idinka warrami doonaa bal dhowr qiso oo aan rabo inaan idinku soo baraarujiyo walaaladayda muslimiinta ah mid waa qaar nabiga inooga warramay qaarna waa kuwa aan anigu idinka warrami doono insha Allah tabaaraka wa taala waa marka koowaad waad xasuusataan qisadii saddexdii nin ee godku uu ku xidhmay ee dhagaxii weynaa intuu soo dhacay dhagax kamida kuwa ilaahay amarkiisa ku soo dhaca minha ma yahbitu min khashyati Allah mid baa kamida maarta dhagxaanta cabsida ilaahay u soo hoobto oo soo dhaca marka dhagax cabsida ilaahay u soo hoobtay ayaa albaabkii iyo godkii ay galeen ku xidhmay marka waa kuwii saddexdii nin mid walba ilaahay bariyay oo ilaahay ugu dhawaaday acmaal wanaagsan iyo saalix ah oo ay ikhlaas niyadi ay ku jirto ilaahay wax ku weydiistay marka mid kamida waa kii waalidkii buu samafalay mid kamida maaragtay shaqaalihii ama qofkii u shaqeynayay buu isaguna sidoo kale u samafalay oo xoolihiisii uu siiyay mid kamida hadaba in adeertii oo uu jeclaa ayuu maaragtay ilaahay dartii uga tagay ninkaasaan u jeednaa maanta wuxuu ninkaas ilaahay waad ogeyd inaan lahaa gabadh in adeertay ah oo aan adduunka ugu jeclaa sida nin uu gabadh u jeclaado nafteedan ka doonay macna xumaan zinu ka doonay dabadina way diiday gabadhaas waa gabadh muxsanada way diiday gabadha muxsanada ah ee dhowrsooni way diiday xaaraanta subhanallah laakiin maxaa dhacay abaar baa dhacday faqri baa dhacay baahi baa timi subhanallah la ilaha illa allah gabadhii meel kasta markii ay martay waxay ogaatay in cid kale oo maanta wax u dhiibaysa aanu jirin in adeerkeedii xumaanta rabay mooyaan kiiba u timi markaa subhanallah markaas waxay tiri war 100 diinaar lacag ah iyo amaahi dabadina wuxuu ku yiri waa lagu siinayaa de halka hawsh aynu galnaa hawsha halka de fariiso subhanallah la ilaha illa allah marka gabadhii markii uu ku fadhiistay bawdadeeda yaani markii gabadhii de heerkaas uu gaaray oo waa meel ay adag tahay inuu ninka ragga ah uu celiyo oo takaadu min almustahilaat waxa ku dhowdahay inay waxyaalaha impossible ka ay noqoto waa ninku markuu halka marayo oo ku dhigi jiray bisinka ma qabsanay bisinka bani lawna buu subhanallah la ilaha illa allah ala kulli hal waxay tiri war hooy kaatunka ha ku jabinin waxaan xalaal ahayn ha ku jabinin ninkii ilaahay buu xasuustay tabaaraka wa taala qalbigiisa furnaayo rabbigii buu cabsidiisa xasuustay dabadeedna waa kii intuu gabadhii iskaga kacay
lacagtiina siiyey ee yidhi ilaahay hadan ilaahu dartaa u sameeyay ama cabsidaada arintaas darteeda u sameeyay ilaahu dhagaxa naga fayd waa ki dhagaxa ka faydmay maxallu shaahidku waxa weeye hadaba gabadha muxsanada ah ee dhowrsoon ee ninku markuu u soo bandhigay xaaraanta diiday maxaa ku kalifay inay ninkan u timaado weeyaan walaalayaal maxaa ku kalifay inay ogolaato inuu dhaho halkan fadhiiso aan ku imaade aan hawsheeda dhamaystay miyayna ahayn faqri miyayna ahayn baahi subhanallah la ilaha illa allah marka faqriga dad badan wuxuu ku kalifi karaa wal ciyaadu billahi ilaahay baro ka magan galnay zinadu ku kalifi karaa wuxuu ku kalifi karaa gabdhaha qaar kood inay jidhkooda ka ganacsadaan ama xaaraan ay ku raadiyaan waxay cunaan iyo qutul daruurigooda subhanallah waxa kale oo aan soo qaadanay xadiis kale oo isaguna saxiixa oo nabigeenu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri nin baa maartay ilaahay wuxuu ballan ugu galay inuu sadaqa bixiyo dabadeedna sadaqadii ayuu habeenkii bixiyay markuu sadaqadii bixiyay baa wuxuu siiyay nin maartay tuuga ayaa gacanta lacagtii qaatay tuug baa qaatay lacagtii subhanallah subaxii dadkii waxay ku sheekaysteen war tuug baa sadaqa la siiyay subhanallah mar labaad ayuu hadana ninkii yiri wallahi haduu tuug gacantaada uu ku dhigay sadaqadaadii war mala maqbuul ma aho ilaahay kaama aqbalina bal caawana mid kala bix habeenkii baa hadana mid kale bixi gabadh zaaniyada oo zinaysata ama jirkeeda ka ganacsata ayaa lacagtii qaadatay sadaqadii markaas dadkii waxay ku sheekaysteen xalay tole gabadh zaaniyada ayaa maartay sadaqa la siiyay habeenkii hadana ballan qaaday wuxuu caawina weenan hadana sadaqa kala bixiyo isagu wuxuu isleeyahay maqbuul ma aho ilaahay agtiisa laga ma aqbalin wuxuu rabaa sadaqadiisu inay gaadho halkee nin wanaagsan ama qof wanaagsan inay gaadho hadana maalintii kale ayaa nin taajira habeenkaas ayaa sadaqadii qaatay subhanallah la ilaha illa allah habeenkiina subaxina waxa lagu sheekaystay in nin taajir oo maal qabeena oo xoolihii iyo lacagtii u qaatay maartay subhanallah malagii baa markaa u yimi oo wuxuu ku yiri sadaqadii aad bixisay horta ilaahay wuu ka aqbalay xikmadda ku jirtana waxa weeyaan nabigu tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayhi in qofkan tuuga ah ee lacagta sadaqada qaatay inuu joojiyo lacalla inuu joojiyo laga yaabaa inuu joojiyo maxay tuugnimada iyo lacagtan xaaraanta uu ku qaadanayo oo uu qaab xalaal ku raadsado oo uu dadka islaamka wax weydiisto dhowr waxay dhiiba war ilaahay dartii wax igu siiya subhanallah oo xaaraantan iyo tuugnimada uu iska daayo hada awalan talabaad waxay tahay in gabadhan zaaniyada ah iyaduna ay cafiifa ku noqoto oo markay aragto muslimiintii oo wax siinaysa ama sadaqa u soo dhiibtay inay dhowrsanaataba oo ay tiraahdo war hadalka nabad adoo dhowrsoon oo aan xumaan iyo ku kiciniyo cay iyo aflagaado iyo cadho ilaahay midna aanay kugu dhicin ayaa muslimiintu wax ku siinayaan maxaad ka dooni xumaantan iyo dambiyadan ninka taajirkana lacala waxa laga yaabaa inuu xasuusto oo uu dhaho war adigaba waa lagu siiyay adiguna wax bixi adigaba waa lagu dhiibay adiguna wax bixi subhanallah maxallu shaahidku hadaba aan u jeedniyo meesha aynu xadiiskan u soo qaadanay waxa weeye gabadha markaa zaaniyada ah maxaa ku kalifay markaa waxa ku kalifay faqri baa ku kalifay subhanallah la ilaha illa allah ninkan tuuga ah inuu waxado maxaa ku kalifay faqri baa ku kalifay baahi baa ku kaliftay marka faqrigu mararka qaar kood fitnada faqriga ilaahay laga magan galo ilaahay wadan ka magan galinaya rabbul alamin faqriga iyaan ka magan galinaya fitnadiis wuxuu ku kalifaya dadka qaar kood oo iimaankoodu daciif yahay oo iimaankoodu tamar yar yahay inay kufriga gaalnimo ku dhacaan oo kaniisada intay tagan wax noo dhiiba ay dhahaan ama diinta intay ka baxaan ay dhahaan wax noo dhiiba anaga maxay nagu tahay diinta islaamka $200 baa dhici karaysa inuu diinta islaamka uu kaga baxo subhanallah la ilaha illa allah waxa dhici karaysa inuu dambiyada waaweyn uu ku galo faqriga darteed waxa dhici karaysa inuu daraag dealer uu noqdo inuu daroogaysto uu noqdo mid ka shaqeeya daroogada iyo khamaarka iyo maaragtay dambiyada waaweyn ka shaqeeya maadaama aan waxba haysanin waa fitna waa imtixaan aad u weyn ilaahay baa laga magan galaa subhanahu wa ta'ala way fitnadaasi waxay dadka ku keenaysaa inay dambiyo waaweyn oo kabaa'ir ay galaan subhanallah la ilaha illa allah taas waa ahadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaqiceena maanta waxa dhacaya hadaynu u fiirsano walaalayaal waxaad arkaysaa in arintaasi ay arin dhaba ay tahay oo dad Soomaaliya oo islaam oo kula dhashay oo muslimiinta ku abtirsada ama iyaguba islaam oo muslimiina in ay diinta uga baxaan faqri iyo baahi ku timi awgeed
laakiin ka waran haddii muslimiintu ay sadaqaadka bixin lahaayeen ama zakawaadka ay bixin lahaayeen ama qof walba qoyskiisa uu wax siin lahaa inta maaragtay qaraabadiisa ah walaalkii adeerkii ilmaabtiyadii maaragtay eedadii habaryarihii hadduu qof walba bishii wax yar u soo tuuro ama sanadkii wax yar ama hadduu doono dhowrkii sanaba mar wax yar u soo tuuro ama zakadaba uu bixiyo ama adigu ka soo qaad subxaanallah la ilaaha illa allah Soomaalidu haday zakada u bixiso waxa kale bay iska daa sadaqada bay halka inaga dhig sadaqada ba halka inaga dhig qaaraanka la yiraahdo qaaraanka reeraha ee wax laga ururiyo ba halka iska dhig subxaanallah la ilaaha illa allah haday Soomaalidu zakada bixiso balka war oo qof kasto zakadu ay ku waajibto uu zakada intuu bixiyo qof qaraabadiisa ah oo baahan uu wax u dhiibo oo inta zakada ah uu qaato dhawr wax xaq Ilaahay ku siiyay qaado هذا حق يقول الإسلام باتهاي المسلمين توحد حق يقول هذا مركز جاچوتو وحل عليه وحل عنتان هاي سنين إند وحويديسته يينا يجونا وحكسيان سبحان الله هذا يصير يلي لهاين أمالين ما ينقف فقير أما قف باهن إنه كن ولا الله أو مارته وشري لها أمالين ما سبحان الله لا إله إلا الله وحن يدين كور رمي أول عليان رياء أنا نو أركين رياء داس ورياء عجيبة ويان وحكون رياء دول عليان إسلام صوماليات أما قبل مارته صوماليات ما وين ما تأدي دوات تضبطين شيء بلها جالس ayaanu tagay waa riyo weey markaas waxaan ku wuri hooyo alaabtan yaa idin siiyay markaas waxay tiri sayidka barakaysan baan nasi sayidka barakaysan baan nasi markaas sayidka barakaysan qofkii aan fahmaynin sayidka barakaysan waxa looga jeedaa waa Jesus waxa weeyaan dadka nabi Ciise caabuda ee kristaanka ah ayaa nabi Ciise waxa uu yaqaan sayidka barakaysan walaga yaabaa inaad mararka qaar kood maqashay sayidka barakaysan تروان نحي واحد سيد كبركيسنا سبحان الله من إلهي كسين ما سيد كبركيسنا بالنسي أو نوك أنا يود وأنا لقصه تبرعي سبحان الله ده نوع حنقول لا إله إلا الله ده كلمة التوحيد لا إله إلا الله كهذا ولا إله إلا الله ده عرب كي أمرك إسلامتي وين هذه وكو هالكرويد وكو العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا أمرك دم أي كل واقعي أو أي تري لا إله إلا الله riyadii marka waxaan anigu ku fasiray aniga sidii ay la muuqatay Allahu a'lam Ilaahay baa oge waxa weeye dadkan Soomaalida ah ee baahan mararka qaar kood waxa looga faa'iideystaa in maaragtay wax yar loo dhiibo oo dabadeedna diinta laga saaro wayna dhacda oo dadka diimaha kale aaminsan iyaguba waxay rabaan in diintooda faafiyaan sidaan inaguba rabnay in diinteena faafino inoo markaan sadaqada bixinayna diinteena inuu bixinayna oo zakada markaan bixinayna diinteena inuu bixinayna وإن ضدك إسلام كأكو سوتشي دنا نبحنا مؤلفة قلوبهم وين عدها وحين وحقرصان ما وحن وحكوسي إلهي درتي وحن كوسي دين تيدا أي أمر يسنا وحكوسيو هكذا أساس دين تيدا أي أمر يسنا وحكوسيو دين تيدا أمر يسنا صدقة أي زكاة بحيو أو عسيو قف باهن ومسلم ينسي أما قف باهن هدو دونان مسلم باهن ينسي سبحان الله أيقون أساسو كلوي ديمه ده واحد ربنا فافيان كريستان ما يهود ما بوريش ما هندو واحد أنا بها نقضانه ترى ما قاعدين تودي ده وحكوا بحنيان ما قاعدين تودي هي وحكوا بحنيان ده مركها وحوي قف باهن بالكورن أو فقيرة أو أفريقيا أو وحل لقيا بجيب جسبة $1 سوسك شيء هذاك تهاي واحد دعك كريسة هدي بشي لا قرب $1 أما تضباطا أما $1 هدي لا قرب inuu diinta ka ridoobayo oo diimaha kale uu galayo la shaki kuma jiro maalinta taas wayna dhacday Soomaali badan bayna ku dhacday subhanallah hadaad rabtaan wa khayru daliil tusaale rasmi hadaad rabtaan kaamamka taga meelaha Soomaalidu baahida badan ay ka jirto meelaha dadka la dhaho way ku soo barakaceen ee baahidu ay ka jirto bal idinku taga subhanallah waad arki doontaan intaas oo company ama hay'adood ama maartay muassasaad ama waxa kale urur ayaa meesha jooga qof walba dan buu leeyahay maslaxa gaar ah buu leeyahay ujeedada khaas ah buu leeyahay marka walaalayaal muslimiinta waxaan ugu baaqayaa kow inaad horta adigu ilaahay ka magan gasho faqriga ilaahay faqri ban ka magan galay ilaahu faqri aadam iyo ibni aadam ii baahaysay oo aan ibni aadam ku baryo ayaan ilaahu ka magan galay tabaaraka wa taala baryo aadam ayaan ilaahu ka magan galay way insaanku baryadiisa markaad barido walaalayaal إنسان كمري بريدي سمركات بريدو
waa inuu wax ku siiyo ama inuu qalbiga uu ka naco ama maaragtay wajigaaga maaragtay uu kala jeesto subhanallah la ilaha illa allah ya qofkii aan ilaahay ka baqanayn tabaaraka wa taala laakiin qofka haduu mu'min uu yahay uu ku farxaya inuu wax bixinteeda waa tii Aisha ummul muuminiin hooyadan Aisha waxay leedahay ilaahay raalaha ka ahade intay soo qaado lacagtii maaragtay dirhamkii ay bixinaysay ayay maaragtay nadiifisaa oo ay tiraahdaa yaa maaragtay qaadanaya oo noogu ridaya maaragtay akoonkii aakhiriya noogu riday macna waxay aaminsan tahay waxan ay bixinayso inuu akoonkii aakhiro ugu dhacayo subhanallah yaa markaa noo qaadayo oo akoonkayagii aakhiro noogu ridaya maaragtay subhanallah la ilaha illa allah walidaalika faqriga ilaahay ka magan gal dadka muslimiinta ah ayaga laftigoodana wixii qaraabadaada ah wixii ehelkaaga ah wixii dadkaaga ah yagana intii karaankaaga ah caawi zakadana iska bix oo zakada markaad iska soo bixiso cid kale ba haasin maanta Soomaali baa ugu baahi badan yaga ugu liita xagga faqriga iyo baahida yaga ugu danyarsan war qaraabadaada kaga bilow zakadii way kugu waajibtay intii kugu soo waajibtay walaalka waxaad siinaysaa in adeerkaasi habar wadaagtaasi eedada way ku bixi karaysa habar yarta xitaa way ku baxaysa adeerka bay ku baxaysa ha subhanallah la ilaha illa allah kuwaasoo dhan way ku baxaysa laakiin aabaha iyo kuma baxayso xaaskaaga iyo kuma baxayso caruurta dhashay iyagana kuma baxayso walaalka waxay dhahaan culimadu ku baxaysa laakiin se waxa wanaagsan inaad walaalka siinin zakada aanad siinine aad wixii aad xoolihii aad zakaysay daahirisay inaad siiso marka qaraabadaada inta baahan si kuwaas maaragtay dad adigu qaraabadaada muslimiinta ka kafaala qaadato oo qof kasto muslimo qaraabadiisa maaragtay ceebtooda uu asturo maanta faqri iyo baahi maaragtay kama sheekan lahayn ba subhanallah la ilaha illa allah dhibtu waxay ka timi inagii baan maaragtay iska faala qaadanayno oo maaragtay intii ehelkeeni intii qaraabadeeni aynaan asturaynin walidaalika baa ceebteeni meel walba ay taala fanasallallahu salaamata wal aafiya wal aliyal hal laysu soo duceeyo ilaahayna faqriga ka magan gala faqriga ka magan gala ilaahay tabaaraka wa taala way fitnadiisa iyo imtixaankiisa iyo ibtiladiisa way badan tahay wallahu ta'ala a'lam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh